waxaan maanta aan halkan u soo fadhiistay inaan ka hadlo dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka ku habsaday magaalada Diradhabe iyo dadka reer City ee degan Cadaytu Cundhufo Garmalu iyo agaarkeyga balse intaan hadalkayga bilaabin waxaan jeclaan lahaa inaan maanta halkan aan dhiirigeliyo barbaarta reer City dhalinyarada odayada anigoo ka hadlaya xariga Cusmaan Mire ee xaqdarrada ah. Cusmaan Mire wuxuu maanta ku xidhan yahay xaqdarro wuxuuna ka mid ahaa dadkii u soo halgamay isbeddelkan maanta lagu nastay ee deegaanka shanaad. waxaa xaaraan ah annagoo si cad u arkayna in la afduubay isbeddelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida oo dadkii halganka dheer soo galay maanta ay gebigoogba dibadda ka joogaan dad kalena ay daaqadda ka soo galeen dadkaasoo maanta Oromo isticmaalayso. waxaa weeye waxaan leeyahay Cusmaan Mire waa halgamaa waxaan jecelnahay in si degdega dawladda dhexe ay u soo dayso xarigiisa waxaa ka dambeeyay waxa qaaday ciidamada federaalka qaaday oo faraha ku dhigay oo cafar u dhiibay. midda labaad dadka xidhan ee halka laga qaaday waxaa ka mid ah odayadii deganaa Cadaytu uu ka mid ahaa uu ka mid yahay Cali Xuseen Guuleed Cumar Furre Rooble Aadan Xareed Waabari oo guryahooga iyagoo iska fadhiya inta la qaaday ciidanka federaalku ay qaadeen ay cafar u dhiibeen maantana ay cafar u xidhan yihiin. waxa weeye arrintaasina waxay noo tilmaamaysaa qaabka uu u dhaqmayo ciidamada federaalku iyo cidda soo amartay inay tahay dawladda dhexe oo dawladda dhexe ka xaqlinayso dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka Soomaalida iyo dhexdeeda oo ay u xaqlinayso cafar. inta kadib waxaan leeyahay barbaarta waxaan u sheegay inay jimcaha soo socda si adag meel kastay joogaan dibad iyo gudaba ay uga bannaan baxaan oo ay muujiyaan wax lagu xasuusto oo dawladdana u soo celiya aqliga in dadkaas gardarro lagu haysto. barbaaray hawsha idinkeenii taalla jimcaha soo socda in dibad iyo gudaba aad maadartay ka bannaan baxdaan oo dawladda aad u sheegtaan si cad Cusmaan Mire iyo ragga kale xidhanba inay xaqdarro ku xidhan yihiin oo xorriyaddooda loo soo celiyo. inta dabadeed waxa weeye waxaan maanta halkan u soo farsay dhibaatooyinka Diradhabe ka jira inaan ka hadlo. Diradhabe maamulka Oromadu wuxuu ku hayaa in waxaan oran karno hujuum dagaal aanan joogsanin oo isdaba jooga. afar ciyaal oo dhagax soo tuurta lama garan waayin sida loo qabto waxna looga qaban lahaa. waxa weeyaan arinta waxa ka dambeeya maamulka Oromada ka dambeeya waxayna uga dambeeyaan waxay rabaan magaalada Diradhabe dadka inay ka barakiciyaan xoog inay ku barakiciyaan bay rabaan. waxa weeye xoog ma soconayo ummadda Diradhabe waa magaalo Soomaaliyeed Soomaali baa dhistay Soomaali baa leh mana ogolaanayno ma aragtay maanta in xoog ba wixii doon hadii la sameeyo magaaladeeda saayir dhibta yar lagu qaato. laakiin waxaan u arkaynaa anagu aqli darnaan u arkaynaa weerarka joogtada ah ee maamulka Oromadu uu ku hayo isagoo adeegsanaya booliiska Diradhabe. magaalada Diradhabe halkee laga arkay booliis magaalo oo dadkii xaafadooga intuu gal ka soo qabta dhalinyartii Soomaalida oo halkee lagu arkay booliis rasaas la dhaca Soomaalida oo daraad yaan arkayno 9 qof bay ahayd shalay oo u dambaysa
nin booliisa intuu iska soo saaray baastoolad inan dhalinyaroo baajaaj wata caloosha ka geliyey oo rasaastii la dhacay. waxa weeyaan arrintani lama garan waayin. waxa weeye sidaad u wada ogtihiin eed u wada haysaan maadartee wararka booliiska Diradhabe booliis dadka u dhaxeeya ma waa booliis la soo adeegsaday oo loo adeegsaday Soomaalida inuu magaalada ka saaro. waa booliis aqalada u dhacaya, waa booliis hantida dadka qaadanaya, waa booliis kabadhada furanaya, waa booliis hor socda handana budhacdoola kan gala kana daaya. waxa weeye annagu haddii aan maanta Soomaali nahay oo magaaladuna ay magaaladeedii tahay dad waxa doonaysiin keena boqolaal kun soo dejiya. waxa weeye waxaan leenahay war magaaladani waa magaalo Soomaaliyeed, waa magaalo nabadeed. annagu dad nabadeed baan nahay, nabad baan doonaynaa. nabadaasaan u helnana waxaa kow annaga aan leenahay oo nii cadaynaynaa maanta in booliiska Diradhabe jooga uunan booliis loo noqonin. waayo budhcad buu noqday dee budhcad looma noqon karo booliis. waa in booliiska gabigiisaba meel la saaraa. waa in booliis loo dhan yahay oo magaalada Diradhabe ah oo qowmiyaduhu u dhan yihiin meesha la keeno. ka haddii la keenayn wax annagu aan ogolaanayno kolnaba maaha. haddii ay meel arrintu hadday tahay xoog baan kugu haysan oo Oromo leedahay xoog baan kugu haysan oo xoog baan booliiskaana kugu joogi oo xoog buu booliis kugu noqon oo xoog baa la isku maamuli oo xoog baan ku isticmaali oo aqaladan boobi oo dadka aqaladan ka saari oo xoog baan isticmaalaynaa ay leedahay. waxa weeye waxa leena waxa ku khaarijin maayo adigana berri, adigana dan kuu noqon maayo, annagana dan nooma. nabadda ayaa wax kasta ka wanaagsan. ha nabad ku wada noolaanno. magaaladuna waa magaalo weyn, nabad ha lagu wada noolaado. sidaa daraaddeed fursadda qura ee meesha taalla waxa weeyaan booliiskan budhcad ka noqday gebigiisaba in meel la iska dhigo oo booliis loo dhan yahay oo Soomaali ku jirto oo Amxaar ku jiro oo Oromo ku jirto in meesha la keeno oo la wada maamulo. midda kale waan iska arkaynaa Maindeli inay booliis commissionerkan jadiidkii waan wada hadalnay. hadalkii aan wada hadalnay idareed macaan oo fiican buu noo sheegay, laakiin wax foolxun baa ka soo baxay. dadka Soomaalida la wada dhaawacay leeyahay nin aqalka ugu ma tagin rasaasta la dhacay ay booliisku xukumay la dhaceen ku yaro Oromo toddobaadkii hore ay rasaas ku dhacday ayuu xaafadda ugu tagu lacagna u geeyay. waxa weeye safasha inay tahay waan iska arkaynaa. midda kale doorta ma commissionerow ma annaga ku dalbanno noo kaalay ku niri haddana wax labada maamulkii Soomaalida ee kii Oromadu ay ka heshiyeen oo la isiri meesha hebel aan geyno oo la sameeyay muu jira waa maya. waxa weeye ninka ku soo magacawday wuxuu ku soo magacawday Soomaali inaad magaalada ka saarto waan ku arkaynaa. waad ku daalitaa. waxa kaaga fiican inaan nabadda ka wada shaqeyno, in mas'uuliyiintii kale ee Soomaalidana in la keeno commissioner ku xigeenno, in saraakiil Soomaaliya la keeno. nin la keeno ma ilaa 10 nin oo saraakiil in la keeno meesha ayay tahay. xilliga taasina iyadu waa sidaa. in yar baan ka hadli lahaa deegaanka Soomaaliya. deegaanka Soomaalidu maanta wuxuu noqday uu saqiiray. madaxweynaha iyo maamulkiisa arinta cadaytu cundhufiyo gadhmul dad badan baa naga dhintay. maalin qura maynan odhan tacsi baan u diraynaa dadka. tacsina uma dirin. maalin qura maynan odhan dadka dulum baa lagu haystaaye xaqoogii ha loo eego. waxa weeye kolka horena maamulkii kan ka horeeyay oo isla xisbiganuna ee ahayd wixii afar ku wareejiyay dadkiina 4 sano iyo 4 bilood iminka maanta wax allaale waxay ka faa'iideen meeshii ma jiro. waxa weeye warqadii aad ku wareejisay ee saxeexday inaad warqad qorto
oo tiraahdo dadkaasi wixii looma qaban wadankoogii baan ku soo celinaynaa maadar inay yiraahdaan war dadka ha laga qaado abti House of Federation-ka inay tagaan oo ay warqad geeyaan oo yiraahdaan war dadka ha laga qaado abti ha laga qaado annagiyo iyo reerkani afareed waan ku heshiin weynay inay yiraahdaan intiina way kari waayeen xilliga waxa weeyaan anagu waxaan u arkaynaa niman kuraasida ku dagaalamayo kuraasida kursi jacayl meesha u fadhiya laakiin dan ummadeed aanan hayn matalan bishii hore markii la isugu yimid daadsaabee madaxweynihii cafarta iyo madaxweynihii Soomaalidu meesha ay wada fadhiyeen oo maadartay wasiir ku-xigeenkii Zeynu Jamaal oo meesha fadhiyay waxay ku hadleenba ka sokow kameraaga inta loo yeeray oo telefishinkii loo yeeray ayuu Zeynu Jamaal yiri dhibaatada meesha ka jirta waxa uu sababa kontrabaalayaw iyo dad nidaamka cusub diidan madaxweynuhu fadhiyay telefishinka Itoobiya waan ka wada daawanay inuu ka jawaabay arinta inuu yiraahdo ahayd waxa uu sababa liyu booliiska cafarta ee shacabka laynaya yaa u sababa inuu yiraahdo ahayd ma oran waxaan arkaynaa madaxweynuhu in badanna wuxuu yiraahdo dhul Soomaaliyeed taako in la qaato ogolaan maayo laakiin maanta waxaan arkaynaa inaad wax kasta ogoshahay midna noogu daran diradaba inta oo bilood bay socotaa meesha intaad joogtayba dhibaatadu way socotaa maalin qura arinta diradabe kamaanad hadal maanad oran dhibta dadka lagu hayo ma ogolaanayno maadar midna maanad oran midna halgan umaanad gelin waxa weeye waxaan arkaynaa anagu dad kursiga meesha doonayo kursiga ku soo ordayay waxa weeye meesha waad ku ceebowdeen haddana waxaan leenahay si sareexan ila hadlaynaa waxaan niga sugaynaa sida ugu degdegsan in arinta diradhabe ee dadka rasaasta la dhacayo aad ka hadashaan in booliis Soomaaliyeed meesha la keeno booliis Oromaha la keeno kuwa maxarna la keeno laakiin dadka iyagu in nabadgeliyadooda sida u helaan inay booliis helaan ayaa loo baahan yahay midda kale ciidamada federaalka ee dadka intay qabtaan cafarta u dhiibaya arintaana inaad wax ka qabataan baan doonaynaa sida daraadeed waxa weeyaan dawladda dhexe waxaan arkaynaa inay xaglinayso waxaan arkaynaa in go'aanaday gaadhay ay ka mid yihiin magaalada sidii loo boobi lahaa waxaasi wax maanta ku anfacaya adigana maaha annagana maaha maamulka Soomaalidana in uu ka dhiidiyo oo beenihii hore noo sheegay uu ka wareego oo xilka uu dadka u hayo ilaan isaga isa saaro isaga is doortay xilka uu isku doortay inuu wax ka qabto daadeer meesha inaad iska banaysaan ugu dambeyn waxaan dilaha dhalinyarta dirdhaba degan waan arkaynaa dhibtan inagu hayo waan arkaynaa maadartay dagaalka aynu nagu hayo waxaan nagu hayo waa maamulkan Oromada iyo booliiska waxa weeye dhalinyaroy waxa loo baahan yahay horta midnimadiinu maanta way fiican tahay inaad halka ka sii adkaysaan midnimadiina inaad wax isweydiisaan in idinka laftarkiinu wax muuqda aad samaysaan wax muuqda oo waxa kamida banaanbax inaad samaysaan oo ku diidantiin wax meesha ka socda waniga nila jimcaha soo socda hadday dibad tahay iyo hadday dirdhaba tahay iyo hadday meel kala tahay iyo hadday qurba joog tahay intiinuba waxaan doonaynaa in meesha aad ismuujisaan ismuujiskaas waxa weeyaan inagoo diidan dhibtaan inagu hayo inagoo ka halgamaya askarta dharaariya habeen nilaynaysa rasaastan ila dhacaysa xaafadaha niga soo dhex guraysa aqalada inta la galo ninigu soo galaya inigu aqaladiina isku hurdanin tumaya inaan qaadayo waxaasi waxaan ogolaanayna ma maamulkan cusub iminka ee dirdhaba joogana ee dhinaca Soomaalidana isagana waan la hadlaynaa oo waan arkaynaa waxa timiday meel lagu galgashay baa timiday meel dagaalo inaga naga baxsanay ka jiraan oo dhulkeena la boobi oo wax kasta la sameyn baa timiday waxaan arkaynaa deegaankii
balkaajabteega garkeeda oo boob lagu hayo dagaal cad oo dhulbooba uu ka socdo wax badan baa socda oon arkaynaa dhib badanna waad ku soo dhex dhacday annagu garabkaagaa nahay waxa weeye arrintaas ha u jiibsan waxa weeye shacabku wuxuu doonayo in uu waxaas uu hirgalaan rabnaa dhalinyartaa waxay doonaysaa inuu hirgalaan rabnaa dhalinyartaa xaq iyo xaquuq bay dooni waxay dooni inay nabad ku noolaato magaaladeedii waxay dooni inay shaqo magaaladeedii ka hesho in waxa ay xaq iyo xaquuq leedahay oo dhanna ay hesho iyaan